asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan idin ahaantiinba kusoo dhowaada sheeko ka mida sheeka libaaxyadii aan halkan idinkala socodsiin jiray sheekaduna waa mid ka mida sheekooyinkeenii goormay kugu dareed libaaxis aragtaan waana qiso ka mida qisooyinkii xiisaha badnaa ee soo kala dhex maray soomaalida iyo boqorka kaynta qarnigaynu soo dhaafanay amba qarniga aan ku jirno horraantiisii haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay ee channelkaynu kusoo gaadho waxaan kaa codsan inaad sabskaraab saarto gambaylalkan aad furato si aad noqoto qofka ugu horreeya sheekada lasoo gelaya uu soo gaadho sidoo kale haddaad iga daawanayso bogga facebook isagana falow kusoo dhowaada sheekada oo inaga sheekaynaya mid ka mid a soomaalideennii hore oon ka soo xigaynay qisadan xiisaha badan waxa uu yidhi waxaan ahaa nin reemiya markaa beryaha ka mid a ayaan safar amba socdaal galay wakhtigu waa xilligii soomaalida iyo libaaxa amba boqorka kaynta dhacdooyinka badani soo kala mareen habeenkiina ay adkayd inaad keligaa iska socoto amba adiga oo aan hubaysnayn inkastoo adigoo hubaysanba hubka aanu waxba qaban jirin markaad ninkan meel cidlaa iska heshaan haddii ayna kula soconin rag badani oo aad iska dhicisaan haddaba hameenkan anoo socota ayuu ninkani yidhi ayaan reer meel yaalla xilli fiida u soo hoyday hu iyo gogol ayay siiyeen oo si fiican ayay ii martisooreen iyo waxaan cunaba markaa intii aanan seexan ayaan ku idhi aroorta waan kala hayaa markaa waxaan doonayaa inaad iminka isuu tustaan waddada aan hadhow mari doono maadaama ood hurudaan xilliga aan baxayo markii ay waddadii tuseen ayaan iska seexday intii aanan weli seexan amba aanan gamin ayaan maqlayay iyagoo isii lahaa aad ha u kallihin meeshani waa wada libaaxe markii aan waxoogaa hurday ayaan yar salalay oo waxaan mooday inuu waagii baryey oo waxaan isidhi sawdigan habsaamay oo waan booday socodna waan ku gujiyey show habeenkuba waa kala badh waxbana maan hurdina waan salalay uun waxaan ku dhacay waddadii yarayd ee ay xalay fiidkii reerku tuseen waxaan socdaba waxaan gartay inaad saacaddu iga qaldan tahay oo aan xilli qalda soo kacay yeelkeeda waxaan isidhi iska socown waxaan waddadii hayaba waa berigiina ma dhowaa maadaama oon soo hababaray oo ayna hayn xilligii aan ugu tala galay ina kaco oon hamiinbar soo kacay markii aan cabbaar hayay waddadii yarayd ayaan xaggayga dambe ka maqlay shanqadh ama jabaq sidii wax ku joogsaday qori yar iyo wixii la mid a oo dhac ka yidhi sida marka aad laan yar ku joogsato oo ay jabto dhacna ay tidhaaha shanqadheedana meel fog laga maqlo waxaa fahmaya halkaa nin amba qof meel cidlo ah oo xidh ah oo aan lahayn jabaq kale maraya dabadeed laanta yara shanqadhaba maqlaya sidii wax lagu joogsaday waad maqlaysaa qofku wuxuu yidhi ninkani waan istaagay dib ayaan u eegay waa wax weyn oo waddadii soo buuxiyey oo cad oo aanan aad u arkayn ilan waa habeen oo aad uma arkayee ayuu leeyay ninkani oo aad mooddo wax weyn oo waddadii soo buuxiyey ayaan dareemay buu yidhi daymadii labaad waxaan arkay libaaxii oo hortayda fadhiya waan yaabay bahalkii iga dambeeyey xilliguu hortayda yimid naxdin iyo anfariir ayaan qaaday dhagaxaan ayaan faraqa ku gurtay waxaan isku daray qayle iyo inaan ku cararo dhagaxaantii oon ku tuurtuuro libaaxii maadaamay naxdintii iga badatay waxaana la yidhaha markaad aad u naxdo ay naxdintu kaa badito waxaaba kaa tagta cabsida oo adigoo naxsan oo anfariirsan ayaad wixii kugu soo ordayey aadna ku oradaa dadka waxaa fahmaya ay meel cidlo ah ku naxay dabadeed wixii ka naxiyey ku cararay libaaxii ayaa ii baneeyey waddadii markuu yaabay ee arkay inaan ku soo jaranahay haddana markii aan in yar socday ayuu sidoo kale waddadii ii fadhiistay haddana wax yar sidoo kale ayaan dhagaxaan iyo qayle isku daray haddana wuu ii baneeyey markii saddexaad ayuu mar kale jidka ii jiibsaday markaana wuu iga horkacay markii aan sidoo kale iyadana aan dhagaxaantu inugu tuurtuuray wuxuu yidhi ninkan odayga ee sheekada ka sheekaynayaa libaaxa amba boqorka kaynta markaad cidlo iska heshaan haddii uu 3 jeer ku soo weeraro oo u suuro geli weydo inuu ku cuno amba uu ku jajabsado wuu iskaga tegayaa marka afraad lagamana yaabo inuu kugu soo noqdo sidii ayay u dhacday markii saddexaad oo waa uu iskaga kay tegey oo waagii ayaa isugu kaya baryey laakiin wuxuu yidhi markaan waxaan ilaa iminka la yaabaa oo ilaa iminka maskaxdayda kasii dhex guuxasa libaaxii oo iisii muuqda inaan kaadi u fadhiistay hurdadu waa cadow ayuu ninkani yidhi kaadidii markaan u fadhiistay ayaan isla bartii ku seexday buu yidhi intaan jilbaha u dhacay oon kaadidaydii ku dul dhacay oon foodda dhulka saaray iyo jilbaha ayaan wuxuu yidhi sida u seexday 10kii barqannimo umaan soo toosay libaaxii
oo iskaga kay tegey iyo aniga oo barti hurda markaan waxaan xusuustaa libaaxu inuu ii soo muuqday markaan seexday oo aanu iga lerbinba agtaydana uu taagnaa xaggaana u sii dhaqaaqay dadka kale ay libaaxa cidlada iska heleen iyadana waxay aad u yaqaanaan libaaxu haddii aad u fadhiisato ood saasun u soo eegto oodan dhaqdhaqaaqin inaanu inta badan kugu soo dhacayn ee isaguna saasun kuu soo eegayo laakiin haddaad dhaqdhaqaaqdo ood isku dayda inaad soo hujuumto waxa laga yaabaa amba aad ka cararto inuu markaaba kugu soo boodo libaaxani wuxuu waxa suuragala markii aan dhaqdhaqaaqiba waayey ee aan intaan jilbaha iyo fooda dhulka saaray aan seexday inuu yaabay iskaga kay tegey dhowr jeer oon libaaxan isalnay amba dad kale aan iga sheekayna wuxuu yidhi ninkani 3 jeer markii isa soo hujuumeen ee 3 jeer ilaahayna ka badbaadiyay inuu una suuro gali weyday inuu cuno inuu badanaa iskaga tegi jiray libaaxu dadka ay cidlada iska helaan sheekadan iyo sheekooyin kaleba iyo muuqaalo kale ku saabsan baad kala socon doontaan channelkan ku soo biiro subscribe saar dhammaantiin waad mahadsantihiin muuqaalkan like saar waxay tahay dhiirigelin dhammaantiin madaxaad noo